xildhibaan cabdifataax maxamed ibraahim geesey iyo xildhibaan Idiris abdi dhaqtar oo iyo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waana ku jeedan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya yama iyo geeka sadana meel dadkii ku bogtaali deegaanada hooseeyaan gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya la ka afuriyay Idiris iyo cabdifataax yama iyo dhac qaadana dadkii isla maraantasnina ma iyo ku qayb qaadana raashinkii afurkahay oo dawladda Sacuudiga ka dagtay dadka ku bogtaali deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waa ko Idiris abdi dhaqtar oo si sheegay inuu wadaan qorshe redlanka nagow dadkii ha bogtaali oo rogan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sidii dadka la naga faday walnagi walku guuleysadii qof walba iyo roobka dhawii hal bil ka hor ya mayla Idiris wala la jeeyay usoo raashinkii haysada mayla biyoogi haysada hatta fuustooyinkii xasuusintii walsin qaaday haddana macluuluntii kale oo kale haytay insha Allah hadii uu nana mayla dhinaca dawladda wala ka dadaalada sidii liin laga faday dadku waa roogowg inta mayla maalin walba la sii wala siin corona ilaahay hanta siinsi tan yahaytan bakaarooyinga mayla masagid jarti biilan daraadiya rooblan daraadiya ya abaar dheedi haddana wala ka dadaalana sidii kanaga fadan qof walba mayla tuulidiisu ku kooy in kanaga faday war dhulkeenka faylan haysan adduunka dhulkuna haysan qof haysada male sidii ku warqabtan carada in ka faylan dhul siman oo caradiis faylata oo carada madowaytaysan ogtin kale lum yaleeray carada adduunka in ka faylan ya haysan bii wala helo kor wala ka dadaalana sidii mayla tuulu walba ceel riigin hela faday qayla dhaanga suubyana sidii tamuuna samafalahayna in la guudaykee wala ka dadaalana sidii tuulooyinkan naga fadan maxamed ibraahim geesey yama bawsuuna mahadnaqay dhammaan dadkii holo gobodan iyo waliba dawladda Sacuudiga boqorshe oo ku koytay deeqta dadka lan qaybiyahaya raashinku oo afurka oo meelo badan oo dadka muslimiinta ay roogan oo boqorka Sacuudiga Amiir Salmaan al Sacuud ardeen ka deeqay ummado badan oo muslimiin oo hay'adda OIC na mayla kormeerka iyo xariirinta ardaylata hay'addu oo jamciyadda Xunayna mayla fulinta ama tanfiidka ardaylata runtii ilaahay ku ajar si rasuulka kaleey salaatu wasalaam mayba aray qofkii qof sooman afuriyo mayba leeyahay ajar shay oo kale marka in badan oo muslimiin kambeesada hadhiibi hay'adda kormeerka suubiyo hayta hay'adda fulinta le dadka geeka mayla inta tawziic ama qeybinta ku jeysado hay yo dhan mayla faday ajar leeyin ajar soo in xisaabsadaan haani helay ajarkaas ilaahay arday isiigna siin kuwala lana dadkii arday walaha dhiibi oo ka do'ayana